markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Siciid Xasan Biixi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska in Maxamed Xasan Wacays Rooble laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiil ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka UK madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay 17 bishii 2025 wuxuu soo saaray 23 wareegto oo hore iyo wareegtadan aan hadda idin akhriyo doono oo ah wareegtadii 24 wareegtada ugu dambaysa waxay u qoran tahay sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan darsay xeerka hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 19/2021 markii aan tixgeliyay ahmiyadda hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Cali Diiriye Axmed Nuur maalin tacab uu ahaado maareeyaha guud ee hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in Abubakar Xaaji Cawil Cumar Cabdille uu ahaado maareeyaha ku-xigeenka guud ee hay'adaha dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la faray dhammaan mas'uuliyiinta la magacaabay inay xilka kula wareegaan muddo 3 cisho ah mas'uuliyiinta xilka lagala wareegay